ciyaaryahan lagu magacaabo Cusmaan Fernandes oo qabsaday hadalhaynta adduunka. intaan ugu gudagalin sheekadan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad na soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasan. Cusmaan Fernandes waa 22 jir ka ciyaara horyaalka heerka koowaad ee dalka Peru. waxa uu si fudud caan ugu dhex noqday kubadda cagta gaar ahaan dalka Peru. magaciisu oo ah Cusmaan ayuu aad ugu caan baxay maadaama uu yahay magac Islaam. Cusmaan Fernandes waxa uu aad u soo caan baxay sanadkii 2017 kadib markii looga yeeray in uu ka qayb noqdo tartanka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika ee ciyaartooydu ay da'doodu ka yar tahay 15 sano. sanadkii 2018 ayuu sidoo kale waxa uu ku soo laabtay dalka Peru waxa uu u ciyaaray kooxda uu markaas ka tirsanaa isaga oo aad u caan baxay markii uu ka qayb galay horyaalka kubadda cagta ee Koonfurta Ameerika uu ka socday. ciyaaryahankan oo isaga aan Islaam ahayn ayaa sita magac ka weyn oo ah Cusmaan kaas oo aad loogu yaqaano in ay baxsadaan muslimiinta. sanadkii tagay ayaa kooxdiisa waxa ay ka soo gudubtay horyaalka heerka labaad waxayna dib ugu soo laabatay ka ciyaaridda horyaalka heerka koowaad markaasi uu si weyn u qabsaday ciyaaryahankan da'yarka ah shaashadaha caalamka oo idin tiyo ay jirto ciyaaryahankan mar wax laga weydiiyay in uu dhibaato ku qabo magaciisa iyo in kale waxa uu sheegay in uusan wax dhibaato ku qabin oo dadka uusan dhibaato kala kulmin. taasi waxaa dheer in Cusmaan walaalkiisa ka yar lagu magacaabo Saddam Hussein oo lagu magac daray Saddam Hussein-kii Islaamka. sidoo kale aabaha dhalay labadan wiil waxa uu sheegay in wiilkiisa saddexaad marka loo dhalo uu u bixin doono magaca George Bush. sidaas daraadeed ilmihiisa saddexaad ma uusan noqon wiil oo waxa ay noqotay gabar. waxa uu sheegay in uu rajaynayo marka wiilka saddexaad uu u dhasho in uu bixiyo George Bush. waxa xusid mudan in qoyskan aysan ahayn Islaam. sidaas daraadeedna magacyadan caanka ah oo ka mid yahay Saddam Hussein iyo George Bush ay ka raadinayaan caanimo iyo in wiilashooda ay caan u noqdaan.